السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. mid ka mid ah muuqaalada kartoonada ah ee lagu xumeynayo islaamka waxaa ka mid ah kartoonka caanka ah Tom iyo Jerry. muuqaalkan wuxuu ku bilaabanayaa Tom oo daba cararayo Jerry isagoo raba inuu dilo. Jerry ayaa ka soo cararayo wuxuuna soo aadayaa dhankaas iyo jaranjarada. Tom ayaa isku dayayo rooga saaran jaranjarada inuu soo jiido, laakiin waxaa ku soo dhacayo biyaano wuxuuna u dhimanayaa Tom sida xooga badan ee ugu dhacday biyaanada. kadib ruuxda Tom ayaa soo muuqanayso iyo jaranjaro sida dahabka u eg. Tom ayaa jaranjarada raacayo, jaranjaradana waxay ula jeedaan dhanka Rabbi ayuu aadayaa si loo xisaabiyo walciyaadu billaah, si uu ugu mid noqdo kuwa jannada galayo ama naarta galayo. markuu aado dhanka samada wuxuu arkayaa bisadcad iyo buug uu ku qoran yahay acmaasha Tom, kaasoo ah qofka xisaabinayo ama xadidaya hadduu galayo janno ama naar. Tom bisadcad ayaa bilaabayso inay aqriso acmaasha Tom. ugu dambeyn wuxuu go'aansanayaa Tom inuu ka mid noqdo dadka galayo naarta maadaama acmaasha Tom ay xun tahay. kadib bisada ayaa u naxariisanayso Tom wuxuuna leeyahay waxaan ku siinayaa fursadii ugu dambeysay, waxaana dib ugu laabanaysaa nolosha, waxaana haysataa 1 saac oo kaliya, kadibna waa lagu xisaabin doonaa. waxaana jiro hal shardi, haddii aad ku laabato nolosha waa inuu raali kaa noqdaa Jerry, waa inaad ula dhaqantaa dhaqan aad u wanaagsan. waxaana loo dhiibayaa warqad taasoo la rabo Jerry inuu saxiixo, waxayna cadeen u tahay Jerry inuu cafiyey Tom. haddii uu waayana saxiixaasi Tom wuxuu geli doonaa naarta. meesha la yaab kale waa halkan, waxaa lagu xumeynayaa islaamka. waxaa soo muuqanayo mas-uulka naarta waana ay gaduudan, waxay xumeynayaan malaga naarta. Tom ayaa nolosha dib ugu laabanayo. Tom wuxuu haystaa 1 saac oo kaliya, wuxuuna haystaa fursad uu Jerry ugu codsan karo inuu saamaxo. Tom ayaa aadayo dhanka Jerry wuxuuna u keenayaa keek ama toorto, wuxuuna ka codsanayaa inuu saamaxo, wuxuuna ka codsanayaa inuu saxiixo warqadda. Jerry ayaa toortada cunayo isla markiiba uu ordayaa. kadib Tom ayaa ka caroonayo wuxuuna si xoog leh ugu soo saaraya godka Jerry, wuxuuna leeyahay warqadan saxiix. laakiin Jerry ayaa dhibkiisa sii wadaayo. mar kale ayuu u keenayaa jubno wuxuuna ka codsanayaa inuu u saxiixo warqadda. kadib Jerry ayaa warqadda u saxiixayo Tom isla markiiba wuxuuna aadayaa dhankaas iyo jaranjarada, laakiin isla markiiba jaranjarada ayaa qarsoomayso, waxayna ahayd fursadii ugu dambeysay uu ku geli lahaa Tom jannada. kadibna god ayaa ka soo muuqanayo dhulka wuuna ku dhexdhacayaa Tom wuxuuna galayaa naarta. waxaana soo muuqanayo mas-uulka naarta waana eyga gaduudan. Tom ayaa naarta ka soo baxayo, adduunyada ayuuna ku laabanayaa wuxuuna aadayaa dhanka Jerry. hab ayuuna siinayaa sida aad maqasheen ama aad aragteenba. sidaasi ayaa loo xumeynayaa islaamka. aad uga warqaba carruurta muuqaalada ay daawadaan, laga yaabaa beri inay dhahaan malaga naarta waa ay gaduudan. bisadana waxay xisaabisaa dadka. meel walba waxay ku hoos qariyeen fikrad qarsoon taasoo ay adag tahay in la fahmo. reer galbeedka ma deyn doonaan dagaalka fikirka ah ay kula jiraan muslimiinta. aad ha looga warqabo carruurta muuqaalada ay daawadaan. isla musalsalka Family Guy waxaa meel wada fadhiya Peter iyo asxaabtiisa, waxay ku eedeynayaan Falastiiniyiinta inay yihiin argagixiso. Peter ayaa wuxuu leeyahay waxaan soo iibsaday Falastiiniyiinta alarm clock ay sameeyeen, kaasoo ah alarm clock ay ku xiran tahay bambo. markuu uu gaaro time-ka lagu borgaraameeyey wuxuu ku dhawaaqayaa ereyga Allahu Akbar, isla markiiba wuu qarxayaa iyagoo sumcad xumeynayo kelimada Allah iyo muslimiinta. isla musalsalka kartoonka Family Guy qaybo ka mid ah waxaa ka soo muuqanayo qof meel ku xiran. Meg Driven ayaa leh oh God kill me now. isla markiiba samada waxaa ka soo muuqanayo qof wata sniper kaasoo raba inuu dilo Meg Driven, laakiin telefoon ayaa u soo dhacayo qofka raba inuu dilo Meg. qofka ay ka wadaan oo ka soo muuqday samada waad fahmi kartaan. sidaasi ayay u sumcad xumeynayaan islaamka iyo muslimiinta. isla musalsalka Family Guy Stewie iyo Prime ayaa ka soo muuqanayo kaniisad. Prime ayaa leh inta aadan dhiman ka hor haddii aad aaminto Masiix jannada ayaad galaysaa. kadib waxaa la arkayaa askar helikobtar ka soo deganayo guri ay xoog ku gal ku sameynayaan. guriga waxaa ka soo muuqanayo Osama bin Laden. isla markiiba waxa uu leeyahay waxaan aaminay Jesus waana badbaadiyahayga. waxaa lagu tusayaa Osama oo leh baalal weliba isagoo jooga samada. waxaasi ay carruurteena daawadaan. arrintaana waxay halis ku tahay carruurta muuqaalada ay daawadaan noocaasina waxay u badan tahay saameyn dhanka maskaxda inay ku yeeshaan oo ay dhahaan Jesus waa ilaah. waxaana u doortay muuqaaladan inaan u soo gudbiyo halista ka dhalan karta muuqaalada kartoonada ah ay daawadaan. haddii aad hadda daawanayso muuqaalkan waxaad u sheergaraysaa family walba oo ku hadla luqadda Soomaaliga si ay u ogaadaan dagaal maskaxeedka lagu hayo muslimiinta iyo carruurteena yaryar. kani waa musalsalka Simpson mid ka mid ah si ay ugu soo hanuuniyaan mid ka mid ah iyaga wadada wanaagsan ayaa waxay u go'aansanayaan isaga iyo familkiisaba inay geeyaan dhankaas iyo Falastiin. Simpson ayaa leh waan fikirayaa meel ay ka buuxaan dad diin leh, dal ay mamnuuc ka tahay hilibka
doofaarka iyo saxaraha aan ku yaalin Casanova sidee ayaan ugu noolaadaa intaasi kaliya kuma eka suurad xumeynta islaamka ay ku hayaan. Bert Simpson ayaa lagu tusinayaa muslimiinta iyagoo tukanayaan isagoo dhex socda oo ku dheeldheelaya ducada muslimiinta. muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. haddii aad muuqaalkan ka heshay like garay una sii share garay family walba oo Soomaaliyeed. waxaana u doortay muuqaalada noocan ah si ay u ogaadaan waalidiinteena Soomaaliyeed halista ku duugan muuqaalada kartoonada ah. inta badan waxay sameeyeen caruurta ay u daaran filimaan ama muuqaalo wayna isaga tagaan. caruurta waa in laga warhayaa waxa ay daawanayaan. waxa ku jiraan waxyaabo in la fahmo ay aad u adag tahay. haddaba hooyo walba iyo aabo walba waxaan u soo diray fariintan si ay uga warhayaan caruurtooda. insha Allah waxaan rajaynayaa buugayga taariikhda madow ee reer galbeedka markuu soo baxo isla muuqaalkan waxa aad ku daawateen iyo waxyaabo kale in aad ka akhrisan doontaan. waxaan ugu talgalay buugaas in aan ku soo gudbiyo xogad aad u badan kuwaas oo ay u badan yihiin dagaalka fikirka ah, dagaalka dhanka warbaahinta, filimaan, kartoono kuwaas oo lagu sumcad xumeynayo muslimiinta reer galbeedka dunida dhibaatooyinka ay ka geysteen iyo waxyaabo aad u badan. insha Allah markuu uu dhamaadana buugaas qoraalkiisa waan idin la wadaagi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.